warsiyaaya qabta siiraaya qabta sidoo ugu baxdeen anaysta Axmed Silaanyo Axmed inuu baarko qamiisto oo gaariga saaran wariyaha wariyaha xagga socota maxaa ku sheekha ku yiri Cabdullaahi adeerkii Axmed waa fiidan lacay agaasimo guud agaasimo qorsheyntu ahaa agaasimo guud buu soo noqday isagoo agaasimo guud ayaa waxa dhacay inqilaabkii halkan waa shabakada miisaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegino taariikh nololeedka madaxweynihii afraad ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo bilowgii noloshiisa ilaa 7 sano oo madaxweynaha ka ahaa Soomaaliland ayaynu barnaamijkan ku faaqiri doonaa waxa martii igu ah barnaamijkan oo aan ku qabtay xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan oo ah qoraaga buugga laga qoray taariikhda madaxweynihii afraad ee Soomaaliland Axmed Silaanyo ma doonayo inaan ka hordhaco barnaamijkan iyo waliba sidoo kale xogaha aan idin wadaagi doono waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo marka koobaad xildhibaanka ahna qoraaga buugga Axmed Silaanyo ugu horeyn soo dhawow xildhibaane marka koobaad intaynan u galin taariikhda iyo ujeedka barnaamijkeena waa kuma xildhibaan Cabdiraxmaan Cartan waad mahadsantahay Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan saad sheegtay xildhibaan baan horta ahaa oo 15 sanadood ayaan xildhibaanaha laakiin takhasuskayga iyo maalinka maanta aqoonta iyo waxbarashadeedii xagga fankay ahayd oo waxaan ku soo takhasusay masraxa riwaayado waan sameeyey buugna waan qoray kale oo masraxa ku saabsan filmana waan sameeyey hase yeeshee intii aan baarlamaanka ku jiray baa xoogaa ma garanaysaa dee aan siyaasadda iyo howlahaas ku mashquulay oo ka mashquulay waxyaabihii mataqaanaa takhasuskayga ahaa inkastoo intii aan baarlamaanka dhiganayay qudheeda aan baarlamaanka ku jiray aan soo bandhigay masraxiyado oo halkan xarunta dhaqanka la yidhaahdo baan ku soo dhigay dhowr masraxiyadood iminkana buug ku saabsan masraxiyadihii ayaa insha allah soo baxaya bishan gudaheeda arrimahaas u geenaya buugga Axmed Silaanyo waxaan filayaa inuu qayb ka yahay waxbarashadaada faneed buuggan طبعا buug Axmed Silaanyo waa buug mataqaan intaan xildhibaanka ahaa aan qoray waana buug inkastoo Axmed ku saabsan yahay haddana ka hadlaya taariikhdii Soomaalida hadday tahay xilligii kacaanka xitaa hadday tahay xilligii ka horeysay kacaanka oo Axmed Jalaantiisi ah hadday tahay xilligii kacaanka kaalintu ka qaatay xilligii halganka kaalintu ka qaatay xilligii nabadeynta kaalintu ka qaatay muddo badan bay ka fikirayeen buugga in la qoro Axmed familigiisu markastana waxay la'aayeen cid ay ku aaminaan yani taariikhda oo ay waxay diideen inuu noqdo wax mataqaanaa xoogaa yani dee aan heerkiisa gaadhsiisnayn dad badan bay la xidhiidheen aan xitaa anigu iga horeeyey haddana may dhicin marka aakhirkii aniga uunbaa mataqaanaa ay ra'yigii soo jeediyeen inaan mataqaanaa buuggaasaan doonayna qorno ka waran dee aniguna Axmed waan yani dee waan markaa isku xisbina waanu ahayn markuu intaan madaxweyne noqon ninaan ixtiraamo ahaan nin yani mutacallin ahoo yani aada u muuqda ayuu ahaa waan aqbalay arrintaa iyada ah aad iyo aadna waxaan ugu dadaalay inaan mataqaanaa xaqaa'iqa si dhab ah oo tifaftiran u soo bandhigo marka dhibaatooyinkii soo wajahay waxaa ugu waaweynaa xogta helisteeda ayaa ugu dhibaato badnayd intii tabarteeda laakiin dad isaga yaqaanay hadday ahayd waraysigooda hadday ahayd wixii social media khaasatan faa'iido badan buu yeeshay oo khudbadihiisii qaar badan oo ku jira idaacadda BBC-da dad yaqaanay familigiisa oo aad iyo aad mataqaanaa yani si fiican taariikhdiisa u yaqaanay iyo dokumentiyaal familigiisa isaga Axmed laftigiisa archiveskiisa yaalay khaasatan xilligii halganka way yaraantiisii Axmed Silaanyo bilowgii dhalashadiisa ilaa intuu waxbarashada galayay si kooban adoo guud maraya maxaad nooga sheegi kartaa way ku jirtaa si fiican bay ugu jirtaa yaraantiisii buugga qofka akhriya Axmed way ku jirtaa taariikhdiisa familigiisa isaga laftigiisa familigiisa kale walaalkii Cali oo ka weynaa dad caynkaas ayaa taariikhda
faamiliga aan ka waraystay. Axmed sida inan kasta yaroo Soomaaliyeed yaa xilligaa noolaa ayay taariikhdiisu tahay. waxyaabo badan oo iska dhaca oo nasiib ku dhacayna waa jirayeen. Masalan 4 walaala inamo iyo 2 hablood bay walaal ahaayeen. inamada isagu dhexdu kaga jiray waxna waa ka waaweynaan waxna ka yaraayeen. markii laga fikiray in la geeyo miyiga laga soo kaxayo kii weynaan wax looga mari waayey xoolihii iyo inuu maqashii ilaaliyo ku yaraana yaryar bay ahaayeen. marka isaga ayaa qofkii ugu habboonaa laga qaadi karay reerka ahaa. adeerkiisoo mataqaana Cabdilaahi Maxamuud oo Axmed Maxamed Maxamuud walaalkii ahaa oo markaa ayaa mataqaana berbere ka shaqeynay ayaa soo kaxayay halka malcaamada kaga daray. isaguna wuxuu noqday ilmo yar oo mataqaana fiican oo mataqaana yani aad iyo aad quraankii iyo wixii u bartay. markuu muddo dhiganayay markaa miyigu ku noqday. markuu miyigu ku noqday adeerkii waxa loo bedelay Zeylac. sheekh la sheekh Maxamed Dhawaaq oo isku family yihiin kala dheereen reer Maxamed Maxamed ayaa Djibouti masaajid ku lahaa. halkaasuu mataqaana yani masaajidka quraanka akhri jiro de sheekh buu ahaa. sheekhaas mar xilliga jiilaal xagga ay tahay kuleelaha ayuu ka iman jiray soo xagaa bixi jiray. wuxuu iman jiray deegaanka Togdheer buu iman jiray. deegaanka Togdheer dadka ayuu xoolaha u casharin jiray. dadkana waa casharin jiray. dabeeto xilli ka mid ah ayuu yimid deegaankii وأبي أحمد شوقي تقدر reerkii reer Axmed buu ku soo degay way isxigeen sheekh Maxamed Dhawaaqi iyo reer Axmed Maxamuud reer Maxamed Maxamuud. dabeeto sheekhu qardhaasuu qorayaayo mataqaana 10 buu akhriyaayo inuu dhalay iyo in kale la socdaano. Axmed oo yar baa mataqaana hoosta kaga jira oo waxa eegaya muddo. dabeeto Axmed warqad markuu u baahdo Axmed baa u soo qaadaya. Axmed baa magaceedu qorqoray وسي هون ما تقانا في عربيتك ويهاون قري كريه بالقرب ورقد تودي بالقرب سي wanaag soo qurux badan buu u qoray. odayii hoostu ka jeclaaday inankii isaga caawiyar buu noqday caawiye qarnaasa marka la qorayo marka dadka la diiwaan geliyay waxa soo buu qoray. markay dhameeyeen hawshii de uu sheekhu dhameystay xoolihii cashariyo dadkii cashariyo ciduu qarnaasa qorayo ayuu damcayn soo noqdo. dabeeto محمد ayuu yimi wasi ninkan waa nin fariida ninkan waa jeclaaday waxa doonay inuu la shaqeeyo oo aan Djibouti geeyo oo masaajidka oo sheekh oo gacanyarahayga noqonay sheekh inuu noqonay insha Allah de kaas waa ninkaas oo inta leego hadda halka jooga wariga de hawshiiba barbiga la qabtay maanta. odagii markii la yiraahdo sheekh uu noqonayo Djibouti wuu aqbalay. dabeeto Axmed baa قميص ير لو قليي كتاب واحد شرا كيش لو كتاب كله قاعدين شري كيش لو سميه كتاب كي قورت لو سميه كوفيد لو سميه إستجى الشيخ محمد دواقي يتيم كيسي حولي وبرعيمي مركب برعيم هذا الشيخ يا أحمد لو يبني يا قميص كي كوفيد ير يعود ير قعد يا كتاب كي قال كله شرا كتاب بس مركب ألعاب اللي يبيه أي وحي متقن لما يستين أي صور قاعد صور عين hargeysa imaadeen Djibouti ku socdaan Zeylac markay imaadeen waa lagu baaraa Zeylac waxa weeye gawaarida u baxaysa wadanka. adeerkii soo jooga kastamka ayaa mataqaana qolihii kastamka ayay maxaa sidaa gaarigu sidaa caanka weeye soo daadega. Axmed inuu baarkay qamiisto oo gaarigii saaran wariyaha wariya حاجة سعتها معك شيخ وكوي عبد الله أديركوي إن كان أبي وصف السحقاضي أنا وذا وحندوري يا مقرر السائر المتقن Djibouti ويقرأ شقية مساجد وحلقة علم كبر أودي ولاد ونقدم. أحمد نقول شيء صح وكشري إنه متقن إسكول كجيرك اللي يسوق على شو قبل عمته تعليم تند مادية برامون قرشة يستيقظ شست وحوار كان أنا متقن هوش سقعت كويه هوش شيء هو وضع صعب ما يسوى كتجيسه
soo dejiyay xagga saaguye hariya Cabdullaahi miyaad ilaahay ka yaabeen waa abiiba isiiyo iska dhaafay sheekh maxamed dhawaaqow tawakkal sheekhu aad u murugaysan baade ilni yaro qaaliya ayuu kaga tagay ayaa gaarigii fuulay Axmedna halkaas zeer lagu reebay axmed noloshiisa markaa intii ka dambeysay Axmed marka halka markii ka timi waxa jiray mataqaana wax xilliga la qoriyay iskuulka sheekh baa uuladii la qaadanayay la qaadanayay Maxamuud Axmed Cali iyo rag mataqaana waxbarashada iyo nin Martin la yiraahdo cadaan iyo wax tiimkaas marayay meesha caruurtii laakiin laga qaatay zeera wii ka hor bay gudubtay oo bari sheekh loo soo qaaday Cabdullaahi wuxuu warin kan oo mataqaan miila keenay ayaan doonayaa Martin iyo Maxamuud Axmed Cali in la igu daro waa yaa la yiri mataqaan anaga ma taqaan kugu dareyno tabato Axmed halkii baa mataqaan ay laga aqbalay dabeeto gaari la loo waraho ay wateen Maxamuud Axmed Cali iyo muxuu ahaayeen iyo Martin ayaa soo qaaday gaariga nimanka Ingiriiska mataqaana marka ay seel ciimaadaan seelacna dhistani weyn bay ahayd oo waxa fadhi jiray dhiisi baa fadhi jiray dhiisiga seelac jooga marka uu Hargeysa iyo cid uu imanayo wuxuu u diri jiray nimanka magaranaysa bahal la yiraahdo Aragosto oo badda biyo laga saaro kalluun weeye mataqaana yani nooc min la yiraahdo Aragosto arsaayado kala abuunta marka waxay Aragostaasa gaarigii taangi biyood ay Aragosto saaran tahay baa dusha saaran anigu dushan saaranahay baaldi foosero biyayna way agtaala marka Maxamuud Axmed Cali iyo Martin xagga shirkii saarayay darawalkii waxa ay warow gaarigaas biyahaas way ququbanaya oo rafrood weeye markastoo biyo iraadaan ku buuxi foosada ka buuxi waa markii gooraysa Aragosto arkay buu yiri oo bad arkay oo biyo badan arkay halkaas ka soo raacay lacag yarna uu soo siiyay arkay jeebka dhammaan mataqaana been ugu xidhay saasan ku imi Hargeysa markaa nimi iskuulka sheekh saas u galay sidee ugu baxdeen anaysta Axmed Silaanyo inta ardayga ahaa waxay raacata oo dhuwan bahayo saaw licilacay muddo dheer marka kubadana ciyaarayna ayaa mataqaana mid ardaydii ka mid ah kubadii walba la orday oo la kala baxay warsiyahay qabta erigi Silaayo saas ku raacay Silaayo qabtada uu leeyahay mid ninka dhuuban ee licilacay qabta saas magaciisa Silaayo ugu baxay markuu sheekh dhiganayay wuxuu ahaa top student number 1 ama 2 kama dhicin marka saas uu mataqaana uu taxaliintan aad iyo aad ugu wanaagsanaa taxaliinta markii 2 sanadood sheekh ka dhiganayeen Camuud baa loo baday 2 sanadood oo haddana mataqaana oo Camuud ayuu dhamaystay 1957 ayuu iskandar ka baxay markaas wuxuu helay scholarship ugu baxay Ingiriiska halkaas uu mataqaana dhaqaalaha ku takhasusaya master wuxuu qaadanayaa shahaado koobaad banking buu ku qaadanayaa master's degree waxa uu ninkii ugu horeeyay Soomaalida master qaatay مع الصومعة كفر صوماليا تاريخ الصومالي oo dhan qofkii ugu horeeyay ee qaatay ayuu taariikh Soomaali ninkii ugu horeeyay ardayga ugu horeeyay masters ka qaatay waxa masters ku buuxo maanta meel kasta ka dhacay ardayga si uu soo gashay markaa si uu soo gashay ma jaamac waxbarashadii markaa uu helay master ahayd mise uu helay ma de macnaha waxa weeye markaa dhamaysid degree-ga koobaad scholarship la siiyay degree koobaad markii la siiyay ayaa mataqaana inuu soo noqdo la kala doorsiiyay inuu qaato masters marka masters baan qaadanayaa buu yiri markaas banking buu ku qaatay banking siyaasadda taan gelin ma jirta shaqooyin uu qabtay oo u dhaxaysay waxbarashadiisii iyo siyaasadda markii 1960 ayuu ka yimi Ingiriiska dabeeto markaas isagu wuxuu wadan ka tagay iyadoo Soomaaliland Ingiriis haysto
intii Soomaaliland istiqlaalkeeda qaadanaysay intii magaranaysa yani iyo ka dambeysaba ingiriisku ku waxbarasho ku maqlaa lodkiisaas ama da'diisaasi waxay ahaayeen raggii ugu horreeyay soo baxay xorriyadda la kulmayay marka waxay ka fikirayeen dalka siyaasaddiisa iyo horumarkiisa iyo magaranaysa inay mas'uuliyad saaran tahay dareemayaan mas'uuliyad saaran tahay marka aad bay ugu hanweynayeen inay mataqaana wadankooda de markay wax bartaan ay hogaamiyaan dawlad markuu soo noqday Hargeysa dawladdii iyo wax kasta muqdisho u guureen dawladda Hargeysa yimi dawlad buu ka raacay xamar buu tagay xamar asxaabtiisii ay iskuuladka ahaayeen first degree soo dhameeyay oo shaqeeya ayuu la kulmay isaga qaar kala mataqaana guri wada galay yani de la tusay mataqaana xaalku yahay dabeeto wasiiradii mataqaana si duqsi oo kale oo markaa wasiirka planninga Axmed Ismaaciil Cabdi oo duqsi oo reer Burca ayaa mataqaana u geeyay prime ministerkii wuxuu yidhi ninkan dawlad masters fista takhasuska soo hata markaas wasiir oo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wasiirka marka wasiirka ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu ahaa nin ma garanaysa tacliinta iyo dadka wax yaqaan jecel reer waqooyiga mataqaana dhiirigelinaya oo arkay inay rag aad tafiye yihiin marka wuxuu yidhi ninkan de baankeenu ka shaqo gelinayna muunta baankana waxa haysta Talyaani khubaro Talyaaniga ayaa iyo dad af Talyaani yaqaan ayaa jooga dabeeto baankii markuu tagay khubradii Talyaaniga ay arkeen ninkan masters kasta way ka hinaaseen iyo ninkan Ingiriisi ku hadlaya xoogaa waxa loo bilaabay in mataqaana la cadaadiyo nin la yiraahdo dhuxul oo soo saar jiray jariidada la yiraahdo dalka wuxuu waxaan ku warhelaa oo iyadoo la iga sheekeynayo la leeyahay mataqaana ninka mataqaana takhasuska leh ee la cadaadinayo kuwa iga soo horjeeda leeyahay mataqaana ninka daaqada ka soo galay ama xubnoogii ku leeyahay aduu markaan arkay deegaanay ma shaqadii suuragal yahay inay khubradii Talyaaniga iyo dadkii tiiba Talyaanigu ay mataqaana baan dabeeto ka bedeshay meeshii qaabkii markaas loo cadaadiyay oo ay madaxdii bank u cadaadiyay dama cadaadisku lagu saaray xubin lagu shaqo lagu dhiibaayo mataqaana meesha xafiiska lagu xirayaa waa lagu yani cadaadisku waa boqol sidood buu qaataa dabeeto uu ka guureegay bankii wuxuu tagay wasaaradda planninga qorsheynta wasaaraddaasoo uu joogo oday mataqaana reer dhaas qoraya qabla la yidhaahdo wuxuu noqday departmentka planninga wasaaradda planninga departmentkeeda qorsheynta ayuu noqday ninkii de waa nin aad mutacallin u ah wasaaraddaana waxaa jooga niman khubaro oo ama qaramada midoobay keeneen iyo World Bank oo Mareykan iyo Ingiriis iyo waxa nimankii baa yidhi ma sha Allah waxa yimi nin qaaliya yimi nimankii bay isku xidhmeen muunta dabeeto horumar awal cid Soomaali oo mataqaana nimankan la jaan qaada ma jirin marka dadkii buu la jaan qaaday rag waa la isfahmay iyagiina shaqadoodu waa fududaatay wasiirkii arintii waa fududaatay wasiirku ku farxay mataqaana dabeeto dibadaha ayaa mataqaana uu tagay oo mataqaana wax loo qaaday tour baa loo qaaday Mareykanka oo la soo tusay Mareykanka iyo sida uu shaqeeyay wasaaraduhu shaqeeyaan tababar noocaasa aduu aakhirkii ninkii ka ahaa agaasimaha guud ee qorsheynta ayaa shaqo kale helo qaramada midoobay dabeeto wasiirku wuxuu Axmed la geeyay agaasimaha guud Axmed waa sidoo lacay agaasimo guud agaasimaha qorsheynta ahaa agaasimo guud buu soo noqday isagoo agaasimo guud ayaa waxa dhacay inqilaabkii ciidanka halka daawada nagala socotaan waa shabakada miisaan qaybtii koowaad ee barnaamijkeena aynu ku eegaynay taariikh nololeedka madaxweynaha afraad ee Soomaaliland intaas ayay ku eeg tahay waa inoo qaybta labaad iyo marka uu Axmed Silaanye geli doono siyaasadda